waxa dhamaantiin baad maqasheen warka dhiilada leh ee laga soo tabiyay magaalada Muqdisho oo kamida dhulka ay degaan dadka Soomaalida ee muslimiinta ah warkaas oo nuxurkiisu uu yahay qarax halka ka dhacay in lagu gumaado lagu xasuuqay boqolaal muslimiina oo isugu jira rag iyo dumar yar yar iyo waaweyn noocyada kala duwan ee bulshada shay kuma jira arintaas inay tahay fal dambiyeed Ilaahay agtiisa aad uga weyn inay tahay astaan muujinaysa bahalnimada iyo naxariistarada ay ku tilmaaman yihiin cidda falka noocaasiya ku kacday waxa falkaasi falxumo ugu filan inuu yahay falka ama dambiga ugu weyn marka gaalnimo laga yimaado waxay culimada islaam isku waafaqsan yihiin shirkiga iyo gaalnimada marka laga yimaado dambi uu qof sameeyo waxa ugu weyn inuu yahay qof muumina xaq darro in lagu dilo maxaad malaynaysaa haddii boqolaal la laayo ilaahay baa arrinkaasi weyneeyay oo yidhi waman yaqtul mu'minan mutacamida fajazaa'uhu jahannamu khalidan fiha وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما قف مؤمنة سيولا كعود له قرد الرأي حق درك الدله إلهي سبحانه وتعالى وحيري أبا المرنتي سوى جهنم الله نوى عروضي وانا نعذرون حريستي سوى كدر كنيا وكيريا وحانو إلهي قفك سود دياري عذاب وين وادي روح حنوجيه وحفلك فالحمو غفلان ان adduunyadan oo dhan inay baabaado marka laga reebo dadka muuminiinta muslimiinta ku nool inay ilaahay agtiisa ka saalan tahay in qof muslima xaq darro lagu dilo qala nabiyuna alayhi salatu wassalam la zawalu ad-dunya ahwanu 'inda Allah min qatl rajul muslim adduunyadan gebigeeduba inay baabaado oo ay rogmato ayaa ilaahay agtiisa ka fudud qof muumina in la dilo qof muumina in la dilo ayaa ka culus ama raga noqdo ama dumar ha noqdo waxa nabigeenu alayhi salatu wasalaam dilka qof muumina xaq darro lagu dilo uu la xiriiriyay oo barbar dhigay shirkiga wuxuu rasuulku sida Abu Daawud wariyay kullu dhanbin asa Allah an yaghfirahu dambi kasto qof bani aadami uu galo waxa la rajeenayaa Allah subhanahu wa ta'ala inuu dhaafo illa rajulun mata mushrika nin dhintay ama qof dhintay isagoo shirki sameynaya mooyaane wa mu'minun qatala mu'mina iyo qof muslima oo islaamka ku abtirsanayo haddana qof mu'mina dilay loo dhaafi maayo dambigiisa isagoo sidii u xambaarsan baa Ilaahay la horgeynaya الله سبحانه وتعالى قفك ودلي وأوقاش كتوني وحري ربي سل هذا بما قتلني إله كان ويدي بالوحى ويقول لي الله سبحانه وتعالى ويدينا إياه وبما قتلته وكورا دونا محد كدش نف ولا حق در له قد لي إلهي سبحانه وتعالى عدي دي شيء ويدين دونا حق قفك الذي لي أنا ربي سبحانه وتعالى وقد شري دونا falka noocaasi dadka muslimiinta uu ku dhacay ee tirada badan ee geeriyooday waynu ducaynaa waxa la Allahumma ighfir lahum warhamhum ilaahay u dambi dhaafo u naxariiso dadka muslimiinta ee qaraabo iyo ehel iyo asxaab bale ay ka geeriyoodeen tacsiiban u dirayna dhamaanteen waayo muslimiinta oo dhami waa walaalo ilaahay baa yidhi innamal mu'minuuna ikhwa مؤمنين تايون با ولالا إيمانك أيا ولاليي إن كستوي كلا بترسين دويهين دول كاي دقيهين أو كلا فوقيهين نبي محمد با عليه الصلاة والسلام يري المسلم وأخو المسلم مسلم كوا مسلم كولالكي ويصدم قداندتك مسلمين تاهي صدو الشيخ النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا قفك مؤمنك يقفك كلا مؤمنك
wuxuu ugu jiraa halka dhismaha qaybihiisa kala duwan ay isugu jiraan. ida ishtakaa minhu cudwun tadaacaa lahu saa'iru ljasadi bisahri walxuma. xubin ka midii marka ay xanuunsato sida aad u soo jeedee inta kale ay ugu damqanayso ayaa muuminiintuna ay isugu damqadaan. dadka muuminiinta ah midabka iyo afka iyo abtirsiinta iyo wadan la wada degan yahay waxyaabaha dadka isku xidha ka mida waxa ka horeeya oo ka xoog badan oo ka qiimo badan oo ilaa aakhira taxan oo aan go'ahayn walaaltinimada iimaanka ka dhalatay. fahiya aqwa raabitin wa ahamu cilaaqatin bayna annaas. waxa dadka isku xidha waxa u xoog badan xidhiidhka dadka u dhaxeeyana waa ka u muhiimsan. dadka waddankeennan degan waxay nala gudboon taa iyo kuwa la midkaaba inaynu ku cibro qaadanno. qofka muslimka ah ee caqliga leh maankiisuna uu xooga badan yahay yactabiru bilwaqaa'ic walxawaadith. waxa uu ku cibro qaataa dhacdooyinka hareerihiisa ka dhacaya meel u dhow iyo meel ka durugsanba. fahada min simaati alcuqalaa. dadka caqliga buuradaa leh maankooduna uu fiican yahay calaamadahooday arrintaasi ka mid tahay. ilaahayna addoomihiisa waa amray markuu uhi factabiruu yaa ulil absaar. dadkana waxaa u fiican oo guul iyo liibaan dhab ahaan gaadhay kaana isaga musiibadu ku dhicin laakiin musiibada isaga lagu waaniyo ee lagu yidhaahdo war waxaa iska ilaali waxaa ciddaa ku dhacay adiga yaanu kugu dhicine. nabigeenna calayhi salaatu wasalaam taa sheegay oo yidhi assaciidu man wucida bikayri sa abu daawuud wariyey. qofka guulaystay ee liibaanta gaadhay waa qofka cid kale arrinkeeda lagu waaniyo oo lagu yidhaahdo ixdar yaa cabdallah watruk hada lianlaa yusiibaka maa asaaba fulaanan. war hebelow digtoono oo isilaali khaladkaana ka joogso. hebel qofka la yidhaahdo waxa ku dhacay adiga yaanu kugu dhicine waayo isagu fursad buu haystaa. dhibaatada waxa sababta u ah uu iskaga ilaalin karo asbaabtii ayaa u sahlan laakiin qofka dhibaatadu ku dhacday isaga kuba dhacdayba mar hadday dhacdeena dib u soo noqon mayso. arrinta noocaasi ah waa inaynu casharo iyo duruus ka baranno. casharada iyo duruusta ay tahay in laga barto iyo cibrooyinka ay tahay in laga qaato waxa ka mid a waa inaynu ogaano waddan hadduu bilaa dowlad noqdo oo fitna ay noqoto taa hogaaminaysa fawdana ay noqotiyo kala dambayn la'aani tahagaysa waddankaasi wuxuu noqdaa martacan lilfitan meel fitanku ay daaqaan. waayo fitnada waxaa la yidhaahdaa fawdada ayay weheshataa. dadka fitnada wada fitnadana waxaa ka mid oo kuwa u waaweyn ka mid ah qatlu lmu'miniina bikayri xaqin wa safku dimaa'i lmacsuuma. mu'miniinta xaqdarra in lagu laayo dhiigga ilaahay ilaaliyeyna in la daadiyo. fitnada noocaasi waxay weheshataa fawdada iyo kala dambayn la'aanta. dadka fitnada samaynayaana waxa ay ka ugaadhsadaan biyaha dhooqada ah. meesha haddii nabadgelyo adag iyo kala dambayn iyo maamul dadkuna ay madaxdooda ixtiraamayaan wanaagga ay ku adeecayaan khaladkana ay uga nasteexaynayaan wixii fiicanna ay ku kaalmaynayaan meesha ay ka jirto fitnadu inta badan kama hana qaado. walihaada waxaynala gudboon awalan nicmada kala dambaynta hogaaminta dowladnimada nabadgelyada ka dhalatay ilaahay sabab uga dhigay ilaahay inaynu uga mahadnaqno subxaanahu wa tacaala. ilaahay baa ina amray inaynu ammaano wanaagna aynu kaga jawaabno nicamka ilaahay uu ina siiyey. nicmatul amni ilaahay aynu uga mahadnaqno oo ilaahay qalbiga aynu uga mahadnaqno oo nicmada aynu qiro allaha bixiyeyna aynu ugu abtirino oo aynu u tiirino. carabkana ilaahay aynu ka ammaano ficilka inaga soo fuliya dhaqdhaqaaqeennuna ha noqdo mid daaca ilaahay oo ilaahay raalli geliya macsiyo yaanu noqonin. waxaa ballan ilaahay ah
nicmadaasi inay kordhi doonto haddii sidaa la yeelo. lain shakartum laaziidannakum walain kafartum ina cadaabii la shadiid buuhi ilaahay subxana wa tacaala. arrinka labaad ee inala gudbooni wuxuu yahay wax kasta oo nabaddaa waxyeelaaya oo khalkhal ay ka faa'iidaystaan dadka ahlulfitanka ah noocyada kala duwan leh, gaalo leh, muslimiin inxiraafo waddadii saxda ahayd ka lumay leh, inay ka faa'iidaystaan u suurtogelinayo muslimiinta ay dhibaateeyaan, waa inaynu iska ilaalino, aynu ka fogaano. hadal baa nabadgelyo darro dhali kara. qof madaxii ha ku hadlo, madax dhaqameed ha noqdo, madax siyaasadeed ha noqdo, qof culimaa ha noqdo, qof ganacsada ha noqdo, qof kaloo bulshada ka mid ha noqdo. mas-uuliyad baa qof walba hadalkiisa ka saaran, waana la weydiin doonaa waxa uu ku hadlay. waxa ka dhasha ee fitan iyo khalkhal iyo nabadgelyo daraana dembigeeda isaga ayaa xambaaran doona oo Allah subxaanahu wa ta'ala la hortagi doona yawm al-qiyaamah. waa in la iska ilaaliyo ficil kastoo sabab u noqonaya fitnada iyo khalkhalka iyo nabadgelyo darada. waa inaynu ka digtoonaano macsiyada. saynu in badan tilmaanay macsiyadu waa cadowga u weyn ee nabadgelyadu ay leedahay. waayo waa nicmo ilaahay. ilaahayna nicamka wuxuu ku bixiyaa kuna daa'imsiiyaa in ilaahay la adeeco, laga amar qaato, sida uu doonayo loo dhaqmo. nicamkana waxaa lagu waayaa oo dadka farahooda ay kaga baxdaa in ilaahay la caasiyo subxaanahu wa tacaala. in allaha laa yugayiru ma biqowmin xataa yugayiruu ma bianfusihim. waana ogsoontiinoo maalmahan doorashadu ay soo dhowaatay, macsiyadu aad bay u fara badan tahay. waxaanaad moodaa dad fara badan shaydaanku inuu ka dhaadhiciyey doorashada inaan la geli karin ilaa ilaahay la caasiyo, bal inaan waxba la dooran karin ilaa horta la waasho, maryaha la dhigto. war iyadoo la miyir qabo oo ilaahay la adeecayo subxaanahu wa tacaala, oo macsiyada la iska ilaalinayo iyo waxa sharciga ilaahay khilaafsana ilaahay addoomaha ka xaaraantimeeyey, waxa la doonaya in la sameeyo miyaan la samayn karin. waa la samayn karaa, laakiin waa wasaawisu shaytaan si uu addoomaha ilaahay uga fogeeyo subxaana wa tacaala, dantooda adduunyo ta aakhirana uu seejiyo. arrinka kale ay nala gudbooni waxa uu yahay dhammaanteenba waa inaynu isu kaashanno, maamul iyo shacabba, rag iyo dumar, yaryar iyo waaweyn, nicmada amniga ilaahayna siiyey inaynu ilaashanno. iskaashigaasi waxyaaba uu ku suurtoobaya waxaa ka mid ah in wanaagga la isfaro, haddii laga tago ilaahay nabadgelyo darro inagu ciqaabayo. in xumaanta la iska reebo, qof waliba xumaanta uu garanayo inay sharciga ilaahay khilaafsan tahay, cidda samaynaysa inuu war Allah ka baqdo xumaantaasi joojiya. in dadku ay gacan quran noqdaan oo meel uga soo wada jeeda cidda nabadgelyada khalkhalka gelinaysa, doonaysana inay fasaad dhulka ka samayso. qofna waa inaanu qarin ama aanu ka aamusin cid uu hubo ama se ay ula badan tahay in dadka muslimiinta dhiigooda ay daadinayaan, ama inay khalkhal iyo nabadgelyo darro ay abuurayaan. dadka oo dhan baa taa ka wada mas-uula. dadka oo dhan taa boolis bay u wada yihiin, dowlad baanay u wada yihiin, waayo dantooda ayaa ku xidhan. ayuha almuslimuuna cibaad allah, arrinta noocaasi waa maslaxa guud oo qofka sameeya ilaahay uu ka ajar siinaayo. waxay soo galaysaa qaacidada sharciga ah ee ilaahay uu ku sheegay fi lqur'aani alkariim: in allaha yaamuru bilcadli walixsaan waitaa'i di lqurba wayanhaa can alfaxshaa'i walmunkar yacidukum lacalakum tadakaruun. waxaynu aada u maqalnaa maalmahan dambe warbaahinta iyo meel walba ka socda ku celcelinta kelmadda madax dhaqameed. madax dhaqameed waayo, shareecadu maxaa ay ka tidhi, mas-uuliyadda saaranista maxay tahay? shareecada islaamka waa lagu xusay oo axaadiida nebiga calayhi salaatu wasalaam meelo badan baa lagu sheegay. dad aan ahayn wulaatul amriga, madaxda ummadda si guud ugu talisa oo haddana ummadda madax u ah. shareecada islaamkuna ay ogoshahay
cariif baa la yidhaahdaa halka inagu caaqil aynu ka nidhaahno ama suldaan, jamcuna waa curafa, waana qabiilada ama reerka ama koox ummadda ka mida qofka si gaara isagu madax ugu ah ee ka shaqeeya masaalixdooda, iyaga matala ee afkooda ku hadla, ee waxa isagu uu diidaana uu yahay waxay diideen, waxa isagu ogolaadaana uu yahay waxay ogolaadeen. waa ka u dhaxeeya madaxda dawladda iyo afraadda shacabka, waayo dawladda suurtagal uma aha qof waloo qabiilada ama jamaacada ka mida inay si gaara ula xidhiidhaan. waxaa markaa laga maarmaan noqotay inay jirto cid u dhaxayso xogogaalo oo ku dhex jirta oo dawladdu ay kala xidhiidho. wakhtigii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waa jireen, bal rasuulkeenna qaar sameeyey oo ansaar nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu Mino kula kulmay intii aanu u hijroon magaalada Madiina, madax dhaqamoodkoodii buu nebigu calayhi salaatu wasalaam la kulmuu la shiray, go'aamana uu la gaadhay ummadooda iyo qabaa'ilkooda ay ku matalayaan. bal rasuulkeennu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam dadku madax dhaqameed inay yeeshaan inay tahay laga maarmaan. laa budda linnaasi min cariif buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam, dadku inay salaadiin iyo jiifaf iyo cuqalo inay yeeshaan waa mid laga maarmaan noloshooda u ah buuri nebigu calayhi salaatu wasalaam. walcariifu fi nnaari buu laakiin daba dhigay, caaqilkuna waa ahlu naar. waa fasiri doonaa, halka ayaan lagu joojinin oo la odhan sheekhu wuxuu yihi cuqaasho oo dhami waa ahlu naar. macnaha xadiidkuu leeyahy insha allah waa sheegi doonaa. nabigeennu calayhi salaatu wasalaam dadka madax dhaqameedka ah kaalintooda ayuu siiyey, waanu ku maamuusay maamulka iyo hogaaminta ummadda ay u hayaan. albukhaariyu raximah llahu tacaala wuxuu saxiixiisa ku wariyey nebigu markuu la dagaalamay qabaa'ilkii la odhan jiray hawaasan, maka markuu qabsaday dabadeed ee dhulkaa daa'if ku hareeraysan deganaa, nebigu calayhi salaatu wasalaam dad iyo xoolo badan buu ka qabsaday, dumar iyo caruur iyo xoolo badan. waayo talaxuma ayaa ku dhacday oo dumarkoodii iyo caruurtoodii bay keeneen furinta iyo goobtii dagaalka, iyagoo markaa isle raggu yaana yaacina ha mitidaan. markii la jebiyey dumarkoodii iyo caruurtoodii iyo xoolahoodiiba gacantaa lagu dhigay. nabigeennu calayhi salaatu wasalaam 18 cisho ayaanu qaybin xoolihii uu ka qabsado warkooda uu sugaayay. kadib nebigay u yimaadeen iyagoo islaamay. nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay weydiisteen inuu dumarka iyo caruurta iyo xoolaha u celiyo. rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waxani haniima ayuu ahaa, wadada ayaa xaq ku leh, labada isku heli maysaana mid doorta. markay ogaadeen inaanu nebigu labada isugu darahayn, dumarkii iyo caruurtii bay doorteen. dumarkii iyo caruurtu mar haddii la soo qabsado saasay addooma ku noqdeen. wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa u baahday muslimiintii addoomaha soo qabsaday inuu idan iyo fasax u weydiistay inuu u celiyo. oo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam kiina raalli ku noqday in loo celiyo waa khayr, kaan raalli ku noqonayidha xaqayga waan doonayaana xoolaha u horeeye ilaahay uuna soo geliyo ayaan uga magdhabi doonaa. laakiin dumarka iyo caruurta walaalihiina soo islaamay waa u celinayna. dadkii waxay yidhaahdeen radiina yaa rasuul allah, rasuulkii ilaa ogolaanoo raalli baanu ku noqonnay. nebigu calayhi salaatu wasalaam ile waa dad badan, qof qofna afti ugama aanu qaadin. waxa uu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam laa adri man adina minkum miman lam ya'dan, kiina ogolaaday dumarka iyo caruurta in la celiyo iyo kiina aan ogolaanu kala garan maayo. irjicuu ilaa curafaa'ikum, cuqaashiinni iyo madax dhaqameedkiinni dib ugu noqda, liyuballiquuna amrakum, si taladiinna iyo arrinkiina ay noo soo gaadhsiiyaan. marka madax dhaqameedkii baa nin waliba uu waraystay qabiiladii iyo jilibkii u talinayay. nabigana calayhi salaatu wasalaam warkii ayuu ku soo celiyey inay dadkiisa iyo qabiiladiisu ay ogol yihiin. sidaasaanuu nebigu calayhi salaatu wasalaam maxaabiistaasi uu ku celiyey. taas waxay noo tilmaamaysaa
madax dhaqameedku inay yihiin sulta sharciya awood maamul oo shareecadu ay ogoshahay diintuna ay jidaysay taana waxaa ka dhalanaysa waxa saaran mas'uuliyad aad iyo aad u weyn waxay soo galayaan xadiidka uu nabigeenu calayhi salaatu wasalaam kullukum raacin wa kullukum mas'uulun can raciyatihi mid walba idin kamida waxbaa la raacshay wixii la raacshayna waa la weydiin doonaa yawma alqiyaama waajibkii xaqi ka saaraa inuu ka soo baxayo inuu dayacay iyadoo ilaahay uu og yahay haddana waa la weydiin doonaa si arrinkiisu u muuqdo waxa waajib ku ah mas'uuliyadda inay ka soo baxaan mas'uuliyadda koowaad ee dadka ka saaranina waa dadka diintooda inay u ilaaliyaan waayo dadka wax loo ilaaliyo diinta u qiimo badan wanaagga ay faraan xumaantana ay ka reebaan allah baa yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara waynu ogsoonahay ninka madax dhaqameedka ah qabiiladiisa siduu danaheeda iyo masaalixdeeda ugu ilaaliyo dhibkana uga difaaco dhibka uu weyne mudan inuu ka difaaco waa naar marka wixii naar inay galaan sabab u noqonayo dadka waa inuu ka waaniyo oo ay ka mid noqdaan dadka wanaagga ay yaqaanaan dadka fara xumaantana ka reeba waa inay noqdaan dadka madax dhaqameedka ay samatalis kuwa nabadda ka taliya oo dadka isu soo dhaweeya ee dadka colaad iyo xumaan aan dhex dhigin danta iyo maslaxadda guudna waa inay eegaan ee ummaddu ay leedahay laga bilaabo dadka diintooda noloshooda nabadooda waa inay ka shaqeeyaan maalmahana taad baa loogu baahan yahay oo dadka mas'uuliyadda weyn ay ka saaran tahay ummadda nabadeeda iyo kala dambeynteedu inay noqoto mid sii jirta madax dhaqameedka ayaa kamida wax kasta oo taa ka sokeeya waa inay taa ka hormariyaan taasina waa inay noqoto maxallu ijmaac wa ittifaaq mid ay isku waafaqsan yihiin waana isku khilaafsaneen wax kale oo la isku khilaafaba taa waa inaan la isku khilaafin taana waa inaan lagu kala duwanaan hana ogaado qofka madax dhaqameedka ku taliya xumaan iyo shar khilaaf iyo khalkhal dagaal iyo dhiig islaam oo daata dambi weyn inuu dhabarka u ridanayo ilaahayna arrinka uu kaga fogaanayo adduunyadana guul iyo liibaan inaanu gaadhahayn ilaahay subxaanahu wa tacaala uu fadeexadaynayo magac iyo maamuuskana uu ka qaadayo rabbina subxaanahu wa tacaala adduunyada iyo aakhiraba inuu ku ciqaabayo allah ka baqdaan dadka madax dhaqameedka ah oo ummadda diinteeda iyo caqligeeda iyo cirdigeeda iyo maalkeeda iyo ummadda nafteedaba ha u ilaaliyaan iyo nolosheedaba qayb weyna waa ka qaadan karaan arrintaana ikhlaas ha raaciyaan oo ilaahay daraaddii ha ka noqoto haddii ilaahay daraaddii ay ka noqoto ajar bay ka heli doonaan wadooyinka jannada loo maro waa mid ka mid ah hana ilaaliyaan qiimaha ay leeyihiin iyo haybadda ilaahay uu huwiyey oo yaanay isqiimo ridin oo aanay iyagu wax sabab u noqday inay qiimo dhacaan aanay ku hadlin ama aanay samaynin ummadduna madaxdeeda labada noocba ha qadariso wixii wanaagana ha ka maqasho ha lagana ilaaliyo aflagaadada iyo hadallada aan wanaagsanayn ee meelka dhaca ku ah ee haybadda iyo qiimaha ay leeyihiin ee ummadda lafteedana danta u ah in loo ilaaliyaha lagu dadaalo waxyaabaha ilaahay uu inagu ilaaliyay bay ka mid tahay iyo nicamkaan aad loo dareensanayn inay dadku leeyihiin madax dhaqameed dowladda iyo u dhaxeeya dadka oo nabadda ka shaqeeya oo kafal xun sameeya iyagu raadiyo soo qabta oo dadka heshiis iyo sulxi dhex dhiga madaxda kale ee diineeda ummaddu ay leedahay oo culimada ahna yaanay ka fogaadin waayo qofku haddaanu isagu culimo ahayn culimada waa inuu ku tiirsanaado ilaahay baa yidhi fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun si aanu dulmi u xukumin cadaalad darrana garsoorkiisu aanu u noqon sulxi iyo heshiis jawra oo dulmiyana dadka aanu u dhex dhigin ilaahay baynu subxaana wa tacaala weydiisanaynaa an yaxfada calayna aliimaana waalamn اللهم احفظ علينا الإيمان والأمن اللهم احفظ علينا الإيمان والأمن اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم أصلح لنا أمرنا كله
ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا أمرنا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.